fadlan subscribe channelka sidoo kalena gambaleelka furo si uusan ku dhaafin wararka muhiimka ah ee aanu halkan soo gelino. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal Ramadaan Kariim ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn ee Bidhaamiya TV uu idin hayo waxaana kamid ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish oo booqday ballanqaadna u sameeyay ehelada dadkii lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya oo ka hadlay dadkii shacabka ahaa ee lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Taliyaha booliiska Soomaaliya oo ku dhawaaqay go'aamo cusub kuwaasi oo ku saabsan bandowga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Kiisaska cudurka COVID-19 ee laga helay deegaanada Puntland oo gaaray ilaa 6 ruux. Webiga Jubba oo ku fatahay tuulooyin hoos yimaada degmada Baardheer ee gobolka Gedo. Akhbaaraadka caalamka ee Bidhaamiya TV oo idin hayana waxaa ka mid noqonaya Sacuudi Carabiya oo joojinaya ciqaabta karbaashka. Waa hagaag dhageystayaal isku soo laabasho wanaagsan ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa guryahooda ku booqday qoyskii laga dilay labada qof ee shacabka ahaa kuwaasi oo degmada Boondheere uu ku dilay askari ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya. Gudoomiye Cumar Filish ayaa qoysaskii uu la kulmay uga tacsiyeeyay geerida dadkii laga dilay waxa uuna u ballan qaaday in maamulka gobolka Banaadir uu kafaalad qaadayo noloshooda. Sidoo kale duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa qoysaskaasi u ballan qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga loo horkeeni doono askarigii dilay dadkooda. Labada marxuum ee la dilay ayaa lagu kala magacaabi jiray Madiina Abdullaahi Cabdi iyo Xasan Cali Cadaawe kuwaasi oo askari ka tirsan ciidamada booliiska oo ka howlgala saldhigga degmada Boondheere uu dil u geystay xilligii uu bilaabanayay dhaqangalka bandowga saaran magaalada Muqdisho. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa cambaareeyay dadkii shacabka ahaa ee askariga booliiska uu ku dilay degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waxa uu sheegay madaxweynihii hore ee Soomaaliya in bandowga dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay magaalada Muqdisho uu culays ku yahay dadka ku nool caasimadda. waxaana uu sheegay in booliiska iyo weliba ciidamada qaabilsan bandowga ay u turaan shacabka Soomaaliyeed. ugu dambeyn waxa uu tacsiin u diray madaxweynihii hore ee Soomaaliya qoysaska iyo ehelada dadkii sida sharci darrada ah loo dilay. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Cabdi Xasan Xijaar ayaa ku dhawaaqay go'aamo cusub oo ku saabsan bandowga saaran magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Taliyaha ayaa sheegay in bandowga saaran caasimadda lagu celiyay 8 fiidnimo isla markaasina hal saac dib loo dhigay. dadweynaha caasimadda ayuu ugu baaqay in ay isdejiyaan isla markaasina ay la shaqeeyaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Taliye Xijaar ayaa ugu dambeyntii sheegay in bandowga uusan saameyn doonin shakhsiyaadka wadada maraya, goobaha caafimaadka iyo dukaamada cuntada lagu iibiyo. waxaana uu sidoo kale sheegay in dadweynuhu ay socon karaan xilliga ay rabaan. 5 qof ayaa cudurka COVID-19 laga helay deegaanada Puntland kadib 11 qof oo la baaray sida uu xaqiijiyay wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka Puntland. 5 ruux qof ka mid ah ayaa dumar ah, dhammaantoodna sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ma aysan gelin wax safar ah. da'dooduna waxay u dhaxaysaa 14 jir ilaa 33 jir. wasiirka caafimaadka Puntland ayaa sheegay in ay muuqato in cudurka uu ku faafay gudaha Puntland. kiisaska laga helay Puntland ayaa ilaa hadda gaaraya 6 ruux. in ka badan 5600 oo qoys oo noloshoodu ay ku tiirsanayd wax soo saarka beeraha ayaa waxaa saameeyay fatahaad uu geystay webiga Jubba. ilaa hadda 2321 beerood oo ku teedsanaa afaafka webiga Jubba kuna kala yaalay 63 tuulo oo hoostaga degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayay saameysay fatahaadda webiga Jubba uu sameeyay sida ay xaqiijiyeen guddiga iskaashatada beeraleyda degmada Baardheere. dalagyo fara badan oo ay beerteen beeraleyda degmada Baardheere iyo weliba duleedkeeda ayaa fatahaadda webiga uu saameeyay. degmada Baardheere iyo tuulooyinka hoostaga waxaa ku yaala dhul beereed lagu qiyaasay 123,000 oo hektar oo isugu jira beeraha waraab iyo kuwa ka baxa biyaha roobab. guddiga iskaashatada beeraleyda Baardheere ayaa khasaaraha soo gaaray beeraleyda Baardheere ku sheegay in ka badan 975,000 oo dollar. waa hagaag dhageystayaal halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Bidhaamiya TV. imankana akhbaaraadka caalamka. Sacuudi Carabiya ayaa meesha ka saaray ciqaabta karbaashka sida laga soo xigtay dukumiinti sharci ah oo ay heleen warbaahinta. maxkamadda ugu sarreysa dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa sheegaysa in karbaashka lagu bedeli doono xabsi ama ganaax. dukumiintigan ayaa waxaa ku qoran in tallaabadani ay ka mid tahay isbedelada xuquuqda aadanaha. Sacuudi Carabiya ayaa lagu eedeeyay xiridda dadka ka soo horjeeda iyo dilalka loo geysanayo.